waxaa weli halkooda kasii socdo dagaaladii u dhexeeyay qowmiyadaha Ethopia iyadoona Tigray ay weli carcartii iyo weeraradii iyo dhul ku sii siqistii Ethopia ay sii wado halka Axmaarada ay ku baaqayso in laga hortago Tigrayga. Nin kasta oo Axmaari ah oo qoriga qaadi karo in uu ka qayb galo dagaalka ayay iclaamiyeen madaxda siyaasadda maamulka Axmaarada. Hase yeeshee dhanka kale waxaa dagaalo kale ka socdaan dhanka Soomaalida iyo Canfarta ay wada degaan oo ay daraad iyo tii ka horreysaba ku dhinteen ugu yaraan ilaa iyo 40 qof. Hase yeeshee khilaafkan iyo colaadan faraha badan ee ka socota wadanka Ethiopia ma waxaa gurbaanka u tumayo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed mase waxaa gurbaanka u tumayo reer galbeedka oo ugu soo celiyay Ethiopia Tigrayga oo laga xoreeyay dhulkeedii intii uu socday dagaalkii u dhexeeyay dowladda dhexe Ethiopia iyo Tigrayga. mase waxaa siyaasadaasi ku lug leh Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo markii uu xilka la wareegayay ay wadanka Ethiopia isku haysteen laba qowmiyadood oo kaliya. Labadaas qowmiyad oo kala ah Axmaarada iyo Tigrayga. Dadka inta badan wadanka soo maamulayna ay yihiin labadaasi. Tigrayga intii aysan xukunka la wareegin waxaa wadanka haystay oo madax ka ahaa qowmiyadda Axmaarada. Hase yeeshee dagaal culus oo ay la galeen ayay waxay ku afgambiyeen Tigrayga dowladdii uu xilligaas Mangista uu madaxweynaha ka ahaa. Hase yeeshee 30 sano oo uu xukumayay Mila Zenawi iyo jabhadda Tigrayga ayaa waxaa soo gabagabeeyay oo soo afjaray Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo xukunka la wareegay 2018. Hase yeeshee intii uu wadanka xukumayay Milis dagaalo noocan ah kama aysan dhicin oo ay qowmiyadaha Ethiopia sidaan oo kale ay isku dagaalaan meel walbana ay xabad ka yeerto dadkii dhammaan ay wada qaxayaan ayadoo la arkayay in ay Axmaarada ay qaxayeen dadkooda shacabka ah maadaama halkaasi ay ka baqayaan in uu ku qabsado dagaal aad u culus oo kala dhexeeyo jabhadda TPLF. dhanka kale 2019 ayuu ahaa markii kacdoonkii ugu horreeyay ee Ethiopia uu ka dhacay kadib cudurkii coronavirus-ka oo ay ku aadanayd waqtigii ay maamulka Tigrayga doorashada ay qabsan lahaayeen. Hase yeeshee dowladda dhexe ee Ethiopia ayaa waxa ay ugu baaqday in ay doorashada dib u dhigaan cudurka coronavirus awgiis. Hase yeeshee waxaa ka dhaga fureystay maamulka TPLF oo diiday in ay doorashada dib u dhigaan ayagoona sheegay in ay mudan tahay in lagu taageero oo aysan mudnayn in la siyaasadeeyo arrimahaasi. Hase yeeshee waxyar kadib waxaa dhacay dagaalkii dhiigmeerka ah ee Tigrayga looga saaray Ethiopia inteeda kale. Haddaba gabagabadii dagaalkii Tigrayga ee Maqala looga waxaa soo baxayay markii ay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed iyo ciidamadiisa ay ka guuleysteen Tigrayga in kadib Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed la waayay 2 isbuuc oo wax media iyo bartiisa Twitter-ka oo inta badan kala hadli jiray shacabka oo midna ka soo muuqanin ayadoo markaas ay dadka Ethiopia isla dhexmareen in Ra'iisul Wasaarihi iyo xukuumaddiisii la gambiyay oo ay talada wadanka la wareegtay Axmaarada. Hase yeeshee Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo niyadda ku hayo in uu awoodii TPLF weeqay jab aad u weyn oo u geystay hubkoodiina uu ka dhigay qaar la burburiyay iyo qaar ay ayagii la baxsadeen iyo qaar ay soo qaateen dowladda dhexe ayaa waxaa suurtagal ah in maamulka Abiy Ahmed uu hadda qorsheynayo soo noqoshada Tigrayga oo la og yahay in ay dagaalka ugu weyn la geli doonto Tigrayga Axmaarada ay ku burburin doonto ayadana awoodii badneed ee Axmaarada kadibna ay noqon doonto mid isla eg awoodda. dhanka kale waxaa la dhihi karaa siyaasadda Ethiopia waxaa walaaqayo reer galbeedka oona ku qasbay xukuumadda Abiy Ahmed in ay dib kaga baxaan Maqala iyo dhammaan Ethiopia meelaha ay ka degnaayeen Tigrayga. Haddaba Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed siyaasadda ay ku soo noqotay Tigrayga ma mid uu asiga wataa mase waa mid ay danta keentay asigoona Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ay labada qowmiyad ee Axmaarada iyo Tigraygaba uusan
naftiisa mid uu toos ugu aamini karo aysan jirin, uu laakiin dhanka axmaarada u janjeero maadaama ay TPLF-ta ay xoogaa ka dhow yihiin marka la yiraaho siyaasadda waddanka Itoobiya inteeda kale. Maxaa yeelay Tigreega ma ogolo in ay waddanka cid aan asiga ahayn ay xukunto, hase yeeshee axmaarada 30kii sano ee ugu dambeysay ayaa la xukumayay, taas oo hoos u dhigtay rabitaankoodii ama hamigoodii ahaa waddanka in ay xukumaan, ayagoona arkay in ay noolaan karaan ayagoona waddanka xukumin. Dhanka kale, dagaalada hadda Itoobiya ka socdo ayaa waxaa la sheegayaa maanta in la jebiyey xoogagii Tigreega oo fariisinimo badan laga qabsaday, ayagoona dagaalku uu hadda weji xun yeeshay kadib markii la arkayay caruur aad u yaryar oo ka qayb galaya dagaalka labada dhinacba axmaarada iyo dhanka Tigreega. Tigreega ayaa shalay waxaa la soo bandhigay gabdho aad u yaryar oo laga qabtay oo ka tirsanaa ciidamadii ay u dagaalamayay Tigreega, sida ay warbaahinta Itoobiya soo bandhigtay. Waan arki doonaa xaaladda Itoobiya meesha ku dambeyso tan iyo intaan